الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، معاشر المسلمين، khudbadeenna maanta waxaan kaga hadlaynaa way ku saabsan tahay arrin muhiima oo aan isweydiinayno dad badanna ay jawaab u laayihiin. xaalka maanta aan ku sugannahay haddaan nahay muslimiin waa xaal aan quruxsanayn, aan fiicnayn, wadci liita, qaybsanaan, cadowgeenni oo inagu sallidmay, layna dullaystay, xuquuqdeennii oo la qaatay, innagii oo layna ihaanaysto meel walba ku ihaanaysa. duruuf adag baa ina haysata. xaalad aan muslimiinta taariikhdooda soo marin baa ina haysata. waxaan isweydiinaynaa maxuu inoogu dhacay? aaway karaamadii iyo sharafkii iyo awooddii ilaahay noo ballanqaaday? aaway cisigii iyo hoggaankii aan caalamka ku hoggaamin jirnay? wixii qur'aanka iyo sunnadu inoo sheegeen? alla been ma sheegin, rasuulkiisuna sal alla alay wasalam been ma sheegin. xaggee laynaga gaadhay? maxaa inagu dhacay? sidee baynu isu daba qaban karnaa? ma sidanaan raalli ku nahay oo xaalkan inaan ku sii soconno ku sii jirno, mise inaan isbeddello wey oo xaalkeenna wax ka beddello oo sidan si dhaanta aan raadin? maxay tahay sababtu? waxaan ka jawaabaynaa su'aasha dhahaysa cizada iyo karaamada iyo sharafta iyo awoodda yaa leh, seese lagu helaa? jawaabtu wax weeye, qur-aanka allah inoogu sheegay. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay, waana xaqiiqi ruuxa muslimkaa rumaysan yahay. allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala, walaa yaxzunka qawluhum ina alcizata lilahi jamiican. hadday awood tahay iyo hadday sharaf tahay iyo hadday karaamo tahay iyo hadday quwo tahay iyo hadday qaynka inaad ka adkaato iska celiso tahay, intuba allah baa iska leh, isagaa gacanta ku hay. waxaa lagu adkeeyey alcizatu lilahi jamiican, kulligeed allah leh, waa casiiz, cizadana isagaa iska leh. khalqigiisa inta casiiskana waa intuu isagu ciseeye oo sharfo, isagaa cizada bixiya. tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayr. allow ciddaad doontaad casiiz ka dhigtaayoo sharaf iyo awood siisaa, ciddaad doontana waad dullaysaa, waad ihaanaysaa. khayr oo dhanna gacantaadu ku jiraa. maamulka kownka alla uu maamulay ka mid tahay, jus'iye waaye. cidduu doonuu dulleeyaa, cidduu doonana alla waa karaameeya, waa sharfaa. ciddii meel kale wax ka raadisaa oo munaafiqiin iyo gaalo agtooda ciz iyo awood iyo karaamo ka raadisaa, waxaan dulli ahayn kala kulmi mayso. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi, bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima. munaafiqiinta waxaad ugu bishaaraysaa inay cadaab xanuun badan leeyihiin. yeyihiin aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica. kuwa gaalada agtooda awood iyo cizi iyo sharaf ka raadinaya, magac ka raadsanaya, oo ma cizi iyo sharaf bay gaalo agtooda ka helayaan? jawaabtu waa maya. alla wuxuu yidhi cizo iyo sharaf iyo awood iyo karaamo isaga ka haya, isagaa leh, eligii baa leh. gaalo ma hayso, munaafiqiinna ma hayaan, mujrimiinna ma hayaan, diin laawana ma hayo, calmaanina ma hayo, mulxidna ma hayo. cizada ilaahay baa haye, isagaana cidduu doona ciseeye, cidduu doona dulleeye. kuwa gaalada daba nashlaynaya, moodaya inay wax ka keenayaan, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan dullinnimo ahayn kala kulmi maayaan. sidaas daraaddeed jawaabta waynu fahmaynaa xaggee laynaga gaadhay.
meesha laynaga gaadhay xadhiggii cizada iyo karaamada iyo sharafka iyo awoodda baynu fakinnay, xadhiggii baa inaga lumay. meel cidlaa baan afka saarnay, jid cidla'a baynu qaadnay, waynu habownay, waan dabayla raacnay. midhaha maanta aan goosanayno waa taraakumaad, waa wax isdul fuulay oo muddo dheer soo jiray oo ummaddani diinteeda ay ka durkaysay ama laga durkinayay. midhaheedii bay maanta goosanaysaa marka. 2 bilyan baan nahay, idin anfici mayso. dhaqaalo badan baan haysannaa, idin anfici mayso. tiradanadaa badan idin anfici mayso. hub baan samaysannaa, idin anfici maayo. nuclear waxba idiin tari maayo. sawaariikhda qaaradaha ka gudbaayo waxba tari maayaan. goorta masdarkii awoodda iyo quwada ummaddani ay sheegto waxba u qaban mayso. balaash. allah tabaaraka wa tacaala cisiga iyo karaamada isagaa bixiya. isagaa shalay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo mu'miniintoo tiradoodu yar tahay, dhaqaalahoodu yar yahay, tabartoodu yar tahay, hubkoodu yar yahay, allah baa ciseeyey tabaaraka wa tacaala, awoodda siiyey. dowladihii xoogga badnaa ee adduunkii inay ka reeyaan oo ka adkaadaan oo qabsadaan, allah baa tabaaraka wa tacaala siiyey. taariikh dheer oo caalamka muslimiintu ay ku hogaaminayeen halkaa ka bilaabatay, allah bixiyey tabaaraka wa tacaala. muxuu ku bixiyey? ma tiraa badnayd? maya. ma dhaqaalo badan baa la hayey? maya. ma hub badan baa la hayey? maya. intaba gaalada dhankoodu u badnaa. laakiin waxaa wax ka xoog badan bay haysteen. maxay haysteen? allah bay ku tiirsanaayeen. allahna tabaaraka wa tacaala isagaa awoodda bixiya, meeshaad moodaysana ma aha. sidaas daraaddeed ayaa waxay xaqiiqadu tahay falilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin. awood iyo karaamo iyo sharaf ilaahay baa iska leh, rasuulkiisuu siiyey, mu'miniintana waa ugu deeqay. man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican ilayhi yascadu alkalimu alطayibu walcamalu asaalix. cize iyo karaamo waxaa lagu gaadhaa hadal wanaagsan iyo camal wanaagsan ood rabbigaa ku raalligelinayso. alkalimu alطayib walcamalu asaalix. cize iyo karaamo waxaa lagu gaadhaa in aad ahaato addoon rabbigii ku xidhan oo ku tiirsan. allah tabaaraka wa tacaala cid ku tiirsani awooddu mar walba iyadaa leh. laakiin markaad rabbi tabaaraka wa tacaala ka tagto, meel kale wax moodo garabkaaga ka baxo, wax kale wax ku tari maayo. arrinkaasi marka waa xaqiiqo maanta aan midhaheeda goosanayn. haddaad rabbigaa inuu ku ciseeyo, kitaabkiisa qabso, dariiqiisa qabso, rumee, daacadiisa ku dadaal, sharciga qabso, kitaabka rabbi xukun ka dhigo, nebi maxamed raac salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sunnadiisi iyo meeshuu maray mar, asaga qudwo iyo ciddaad ku dayan lahayd ka dhigo, saxaabadii iyo salafkii dabagal. halkaasaa karaamad iyo sharaf ku jira. waa wareernay, bari baynu aadnay, ruush iyo waxaynu aadnay kutla sharqiya, shiyuuciyaynu aadnay. hanti wadaagga cilmiga ku salaysan maalmaana nagu wareeriyey, hoog iyo halaag waxaana meelnaa ka qaad. reer galbeed baynu u yacnay, maraykan iyo yurub baynu daba nashlayno, daba yaacnay, oo dowladaheenniiyo innagiiba daba horon. qarni iyo ka badan baa la daba yaacaya. maxaa laga helay? ilaa maanta la daba yaacaya. war maxaad ka goosateen? maxaad midha ka goosateen? maalinkaan ugu liidanay baan joognaa. taariikhdayna soo marta haddaan muslimiintana. maxaan ka goosannay? dhankaa u yaaca, oo dhankaa u yaaca, oo dhankaa u orda, oo dhankaa u rucleeya, ilaa aad xaqiiqada soo taabataan ood ku soo noqonno mastarkii cisiga iyo karaamada. dulligaasaan ku jirayna. sidaas daraaddeed karaamadaadu waa inaad rabbiga tabaaraka wa tacaala ku tiirsato, isagana aad cisiga iyo sharafta ka raadiso. addoommadan masaakiinta ee adillada ee gaalada aan ada qiimo badan, haddaad shakhsi tahay iyo haddaad umma tahay, allah tabaaraka wa tacaala ummaddan wuxuu u marlan qaaday inuu dhulka u dhiibayo, diinteeda makaninayo, cadowgeeda ka adkaanayso. laakiin shuruud baa lagu xidhay. maxay tahay shuruudda lagu xidhay? wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat. iimaan, camal saalix. yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a. alla keligii oo la caabudoon cidna lala wadaajin. sharcigiisa iyo qur'aankoo lagu dhaqmo, qawaaniintan iyo xeerarkan kale meesha la keensada meesha laga saaro.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أهل الكتاب waxaad ku tiraahdaa baa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax alla waxaad ku sugan tihiin ma jiro, diin ma haysataan, qiimana ma lihiin, wax alla waxaad ilaahay agtiisa ka tihiinna ma jiro ilaa tawreed iyo injiil iyo kitaabkii kutubtii laydiin soo dejiyey aad istaajisaan ood ku dhaqantaan. allah tabaaraka wa tacaala muxuu dadka kaaga dooranayaa? waa caqiidadaada, waa iimaanka, waa taacada, waa camalka, waa daacadnimada, waa shaqada aad diintiisa u shaqaysood u adeegto. taasaa dadka kaga duwan tahay. maxaad ku dhantaa addoommada kale? intaasaynu marka karaamiyo sharaf ku lahayn. intiina ama waan seegnay in badan oo ka mida, ama waa layna seejiyey. sidaas daraaddeed sharafkeennu waa inaan ilaahay ku soo noqonno, sharcigiisa u soo noqonno, qur'aanka aynu qaadno, macaanidiisa ku dhaqanno, dastuur inoo noqdo, maxkamadaha la dhigo, ummaddu ay u laabato keeda yar, qoyskeeda, dowladdeeda, dhaqaalaheeda, xidhiirkeeda, kulli inay dhaqan ka dhigato kitaabka rabbi tabaaraka wa tacaala ee wax walba inoo sheegay, wax walba waxna aan ka tegin. intay laakiin meelo kaleeto wax inoo yaalyaalaan oon jeebabka ku wadanno xeer jajab iyo dasaatiir gaalo laga keenay, oo aynu leenahay waxbaan ku noqonaynaa, dowladaan noqonaynaa, awood baan leenahay, cadow baan iska celinaynaa. meermeertaynu ku jirnaa iyo wareer weligeenna aynaan ka baxayn. muddo dheerna waa ku sii jirna, waana ku sii jiri doonnaa ilaa xaqiiqada aan taaban. allah tabaaraka wa tacaala agtiisa sharafku waa kaa. xataa haddaad shakhsi tahay, maqaayiista sharafka bini aadamku waa ka duwan yahay maqaayiista rabbi tabaaraka wa tacaala, way kala duwan yihiin. midka miskiinka ah ee muslimka ah ee curyaanka ah ee caydha ah ee waxba haysanin ee muslimka ee mu'minka ah waa ka karaama badan yahay ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala gaalada midka ugu sharaf badan, waa ka qiimo badan yahay. nabigeenna maxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa u yimid nin saxaabada ka mida la dhihi jiray ibnu ummi maktuum oo indha la'aa. rasuulku markaa wuxuu la fadhiyaa nin ka mida odayaashii quraysheed oo nin weyna agtooda ka ahaa, ayuu markaa ninkaa nebigu la fadhiyaa wuxuu sheegayaa damac badan baa kaga jiray inuu soo hanuuno. ninkan indhoolkoo socdaa nebiga u yimid sal alay wasalam wuxuu yidhi yaa rasuulallah arshidnii, rasuulka i hanuuni, rasuulka wax ii sheeg. nebigu sal alay wasalam waa dhibsaday, waa yara dhibsaday. ninkii gaalka ahaa buu nebigu qaabilay, ninkan muxuu ahay indhoolkee miskiinkaana waa ka jeedsaday. nebiga sal alay wasalam canaan baa lagu dhuftay. cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa. waa weji tubay, waa jeedsaday kii indhaha lahaa inuu yimid daraaddeed. wamaa yudrika lacallahu yazakkaa aw yadakkaru fatanfacahu dikraa. maxaa ku ogeysiiyey inuu waano qaadanayo oo isdaahirinayo oy waanadu anfacayso? kan aad u jeesanayseed ku mashquulayso ma mas-uuliyad baa kaa saaran inaad soo hanuuniso? maa man istakhnaa, kan deeqtoomayan danba lahayn, en diinba rabinba, maxaa isugu mashquulinaya? miskiinkan baa xaq leh, indhool ha ahaado, miskiin ha ahaado, isagaa ilahay agtiisa karaama ku leh. abu sufyaan ood garanaysaan odaygii quraysheed radia allahu tacaala canhu ardaha gadaal ka soo islaami doona, isagoo gaaloo socda ayaa wuxuu soo maray saxaabada nebiga sal alay slam, raggii ducafada ahay la daciifsan jiray, qaar addoonnimada soo mareen. salmaan buu soo maray iyo suhayb iyo bilaal. markaasaa waxay yidhaahdeen, aleelahay seefihii alle cadowga ilaahay luquntooda meeshii la rabay mayna qabanin. maantaba abu sufyaan hadduu dhulka marayo xaragoonayo, seefta ilaahay sidii la rabay umayna shaqaynin bay dhah. mar hore inay qabataan la rabo qoorta ka goyso. abubakar oo markaa maqlayay baa wuxuu ku yidhi, waryaadha, war ma odaygii quraysheed iyo sayidkoodii, suldaankii iyo ugaaskii quraysheed baad saa ku leedihiin? kadibna abubakar wuu soo tegay, nebigu u yimi sal alay wasalam. nebigu arrintii u sheegay. rasuulku wuxuu ku yidhi sal alay wasalam, abubakarow, ma dhici kartaa nimankaasi inaad ka xanaajisay oy cadhoodeen markaa hadalkaa ku jiri? haddii aad ka xanaajisoy cadhoodeen oo arrinkaa ka cadhoodeen, rabbigaabaad ka cadhaysiisay abubakarow. abubakar waa soo noqday, wuxuu u yimid iyagii, war walaalayaalow, war miyaan idinka cadhaysiiyey? maya walaalle, allah kuu dembi dhaafo.